هذا نمك ذلك دلاتي ومدة الصوماليات ميل كستهجوا دلاتي باوحي أقلين ميل وطوة كمدة ووردو الشيبة بيوفونين قاريق إعلامي قنو غوص بقاها هالكاسي دبحيث كساميين مساستون هالكاس بيقوها على الشيء وحويه iyagana hadda howlgallada waa lagu jiraa oo ciidamadu marna ka daalin maayaan waajibaadka ay dalka u hayaan waad ogtihiin oo nimada kale waa niman dalka khalkhal geliyay oo ummadda dhibaateeyay meel kastoo ay tagaana lagaga hari maayo haddii ilaahay idanka ka dhigo qofka wadkiisu waa galaan waa dhimanayaa laakiin muhiimaddu waxa weeye safaayadda dalka laga safaynayo argagixisada wey وقرتي مركا رصاصتي لغو فري بل هدي هالكاس دادك او بياميسو اساقا كليا ميها لا شيء مثل عيدا مدي ودن سامين بكو يالتي هذا عسكري إذا سركال كاس باكو دنتي عيدا مدي كلي وحماي قارين مركا مكوريا هايين اساقو مكوريا لسعوتي مثل قاريقي سكليا عيدا لوري ما قاريقي سكليا هايين الشباب قريو ما ينتشتو عيدا مغلب سدو ميل مريح واجبات كودا كودايا ما انتسان فلايين ويه قادمين وحكود دلان ونول بواو يهي ان شاء الله تلاوضي قادين وقت جواب الدون عطيها tan iyo markii la dilay taliyaha maxaa talaabo ah oo la qaaday oo hadda la dhihi karaa wax talaabadaas un baan qaadna talaabo badan baa la qaaday dhul badan oo iyagu fariisin u ahaa way ka carareen وحوي وانا كتغين او wax badan oo baqdinaya gadgax baa ku dhacay waana shaqaynayaan waa ogyahay talabadan ka qaadayna waa ogyahay mid kulul oo darbaahan inay ku dhacayso si degdeg ah waa ogyahay madaxda sare ee Puntland sida la wada ogyahay wali kama aysan hadlin dilka Allah u naxariistay Colonel Jaamac Guduud marka maxaa jira oo looga hadli waayay isleedihiin هذا روانين التيوي سركان التيوي الله ونحريص طبعا ولين هاي لكن إلا الله ما هجير جواب لقد حيو لما تكري سمشي يقول لكن جواب دقدقة لقد حينا يهدي رايدن تكريكو وحي تلكاتي ما لا آسي هذا سرقالكي مسي ولي لما آسي ما يوالله آسي أفكران باللوس سنيي المداوة بوصاصة لقوة عصي المسؤوليات فربضان باكا سوقين قصية آسكيسة iyo shacab weynaha halkaasaan hada ruuxa waa gartay waxaad sheegtay in al-shabaab aysan hawaysan karin ciidan meel maraya in ay gaadmo wax ku dilaan ma ahane haddana waxay dileen sargaalka ugu sareeyay la dagaalankooda gobolka bari gaar ahaan buuraha galgala yaan la is oran karin cudud al-shabaab ayaa xilligan ka jirta buuraleyda galgala ee Puntland adeer waxa weeye sidoo qofkii wadkii galo waa dhimanaya laakiin midna ku sheegayaayo nimana kani sidaan hore kuugu sheegay ciiday gaadaan ma aha bareey ciiday soo intisi karaan ma aysan aha dalkana ciidan uu leeyahay Puntland ciidamo badan oo daraawiish bay leedahay dalka iyo dadkana loo tababaray ummadooda inay difaacaan diyaar bayna u yihiin wixii cadawga oo soo wajaha dhulkooda iyo dalkooda iyo ummadooda arinta iyada ana waxa weeye si degdeg ah uga maqli doonta jawaabteeda lagu dhufto ilaahay waa tahay in ka badan 3 sano ayaa dagaal ay socdeen oo hadda buuraha galgala ee al-shabaab iyo ciidamada isku hor fadhiyaan marka maxaa hortaagan ayaa isleedahay in halkaas laga sifeeyo adeernimada kale niman tuuga weeye niman risheera weeye oo ummadda dhibaateeyay oo dambi ka galay nin dambi galay oo risheeriya waa ogtahay oo meel gooba oo cayiman oo loogu tago lagu soo wajaho ma uusan lahaa aagagu bedelanayaa caawa meeshu joogo waa ka guurayaa dhul kale buu tegayaa niman sidaas weeye adeer waxaa kaliftay marka in la helo rugta rasmiga ee degan yihiin
dilkii allah u naxariistay jaamaca Afguduud adigu taliye ku-xigeenkii ayaa tahay muxuu saameyn kugu yeeshay adeer waxa weeye allah u naxariisto baan isaga leenahay mid baan kuu sheegayaa xiriirka dambe iyo jawaabtaan bixinada maqli doonta hadii raay waa tahay ugu dambeyntii dadka ku dhageysanaya meelo kala duwan oo Soomaaliya ka maqlaya maxaad leedahay fariin u diraysaa ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nimanka argagixisada oo ummadda dambiga ka galay oo dalka dhibaateeyay meel kasta oo Soomaaliya joogto in waxa weeye lagu jihaado dalkana laga safayo talaabana laga qaado meeshii lagu arko loo soo sheego ciidamada qalabka sida meel joogaanba baan leeyahay waxa laga digtoonaado laga diyaar garoobo ummadda laga safayo intay ku nool yihiin baan leeyahay waa tahay taliye ugu dambeyntii maxaad ka taqaanay jaamac Saciid Warsame jaamaca Afguduud waxa weeye wuxuu dhashay horta 1983 ma garan haye waxa weeye wuxuu ku dhashay degmada Gaalkacyo isagoo dugsi hoose dhexe kaga baxay بعدين لبدا كل يتضبادي بشي لبدا كل يتضبادي وقراي كليات وحي تهي وياني وكترسان كي مقرا هيه وحوها نين هذه آد ودبيحات فران ومدى الصوماليات دادك هو أريقاه ودادك مدى جعل وحريرين تيسك حركة آد ugu wanaagsan waxa weeye hadda allah u naxariisto jannadiina geeyo nin wadaninimada aad ay ugu fog tahay buu ahaa inta bar fiican ka soo qaatay kulliyadii uu ka soo baxay oo wiyaani bay ahay buu ahaa waxa uu soo qaatayna ummadiisa uga faa'iideynayay dalkiisa iyo dadkiisa ma garan radio dawan kala socda asagoo live iyo intabo kala socda radio dawan abwaan gamure oo asaguna waraysi aynu ku qaadi doono habeen dambe abwaan gamure oo Facebook aad looga yaqaano gabayaaga iyo qoraaga intaba kala socda radio dawan aad iyo aad baan idin salaameynaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtiin